war degdega saaxiibayaal ciidamada dowladda Soomaaliya oo la wareegay deegaan hoos yimaada ama markaasi wax ka yar 20 kiiloomitir u jira magaalada Masjid Cali Gaduud ee gobolka Shabeellada Dhexe xilli kaarayaasha dagaalka lagu soo bandhigay wacdarihii maanta ee sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ku qabteen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe waxaan rabaa inaan halkan idinkula wadaago xog degdeg ah oo dhawaan la helay iyo sidoo kale xogta kaarayaasha waaweyn ee lagu arkay furimaha dagaalka muxuu yahay go'aanka qaraar ee haatan uu qaatay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya madaba in la qorsheynayo in gabi ahaanba meesha laga saaro kooxaha argagixisada khawaarijta laayaanka ugus inta aanu dhammaan sanadkan 2026 waxaan rabaa inaan halkan idinkugu baahiyo xogo degdeg ah istiraatiijiyada dagaalka oo wax badan laga bedelay iyo sidoo kale xogta deegaanadii maanta ay mareen geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliya balse intaan ku seen xogta oo dhameystiran halka naga daawanaysaan oo warbaahinta CSM aniguna waxaan ahay Cali Baashi Cabdi kamid noqo saaxiibada sida joogtada u hela wararka iyo xogaha degdeg ah ee aan goor walba halkan ugu baahino bulshadeena ma qorsheynaysaa inaad u dhoofto dalka dibadiisa mana raadinaysaa tikidhadii ugu jabnaa iyo adeeg hufan haddaba shirkadda Mareeg Travel Agency Cargo oo looga haray fududeynta arrimaha safarka waxay diyaar kuula tahay wax walba oo aad uga baahan tahay fududeynta arrimaha safarkaaga adeegyada safarka oo weli kartid waxaa kamid ah tikidhada diyaaradaha duulimaadada caalamiga ah iyo kuwa gudaha oo qiimo jaban adeegyada dalku galka visa service caawimaad buuxda oo ku saabsan habka fiisa dalbashada hoteelo raaxo leh oo ku habboon miisaaniyadaada ayaanu kugu diyaarinaynaa goob walba ama garoon walba oo ka dejino xajka iyo cumrada oo si damaanad leh lagugu geynayo goobaha barakeysan ee xarameynka kuna darso waxaan ku haynaa Cargo 24 saacadood shaqeynaya kaasi oo degdegsiimo iyo damaanad leh alaabtaada meel walba oo dunida kamid ah daqiiqad kugu keenaya Mareeg Travel Agency Cargo looga haray fududeynta arrimaha safarka waxay xafiisyo kala duwan ku leedahay magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho wagaag xafiiska Nairobi oo ku yaala Isli Jam Streetka soo horjeedka Kulan Coffee suuqa weyn ee loo yaqaano Hoda Tower Festival xafiiska nambarkiisuna waxa uu noqonayaa F30 ama ugu hagaag xafiiska Muqdisho oo ku yaala suuq bacaad Ruxsan Mall garoon falo sidoo kalena dukaanka ama xafiiska nambarkiisu waxa uu noqonayaa F20 wixii intaas faahfaahin dheer kala xiriir nambarada iyo ciwaanada kale ee shaashada ku qoran adigoo beegsanaya nambarada ku qoran shaashada hore ee muuqaalka Mareeg Travel Agency waa maareeyaha safarkaaga waxaan wanaagsan mar kale saaxiibayaal dagaal la xooganaya maanta ka dhacay qayb ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe iyadoo halkaasina ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan guutooyinka gorgor oo ku hubeysan beebayaasha dagaalka iyo sidoo kale gawaarida waaweyn ee kaarayaasha dagaalka lagu arkay qayb ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ciidanka baxay magaalada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa gaaray halka loo yaqaano Sumadaale oo gobolka Shabeellada Dhexe ka tirsan waxayna hoos timaadaa amaba ay u dhowdahay Masjid Cali Gaduud iyo Cadale oo waa santarka kala qaybiya labadaasi magaalood waxaa la aaminsan yahay in deegaankan uu u jiro magaalada loo yaqaano Masjid Cali Gaduud oo hadafka ugu weyn iyo sidoo kale yoolka ugu weyn ee dagaalka laga leeyahay uu yahay in lagu xoreeyo ayada iyo sidoo kale deegaanka ama degmada kale ee loo yaqaano aadan yabaal wax ka yar 50 kiiloomitir ciidamada oo maalmihii la soo dhaafaba dagaal saf ballaaran watay ayaana u daatay godadkii gaarka ah ee argagixisadu ay ku lahaayeen deegaankan Sumadaale ciidanka dagaalkan hogaaminaya waa kuwa gorgor waxaana la filayaa in ay markaasi kordhiyaan maalmaha soo aadan weerarada iyo sidoo kale duulaanka ka dhanka argagixisada gobolka Shabeellada Dhexe oo dhan argagixisadu hadda waxay kaga soo aruurtay 3 magaalo oo kala noqonaya Masjid Cali Gaduud aadan yabaal iyo Runirgood saddexduna waa hadafka ugu weyn ee hadda la doonayo in gulufkan looga saaro kooxaha argagixisada sidoo kalena diyaargarow xoogan ayaa soconaya waxaana la filayaa in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dhawaan u guuro degmada loo yaqaano Cadale halkaasi oo halka laga duulaan tagay isla markaana geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliya ay maanta weerarka ka qaadeen saacadaha soo aadan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu halkaasi gaaro walow safarkan uu ahaa mid si qorsheysnaa dib u xoogan oo ku yimid sabab la xiriira in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka mashquulay safarkiisa Cadale sidaan xogaha ku helnay 26 bishan oo aanu soo dhaafnay ay qorshuha in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu Cadale u guuro laakiin safarkaasi dib u dhac u yimid sidoo kale waxaa la filayaa in marka la gaaro 30 bishan dhamaadka ah ee July 2026 uu halkaasi dego madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muddo 2 bilood ayuu halkaasi u degnaa doonaa karkarinta iyo waditaanka howlaha la dagaalanka argagixisada
si guud Soomaaliya mar kale waxa uu curanaya duufaanta la dagaalanka argagixisada waxaana diyaar garow xoogan laga dareemayaa badi deegaanada ay ku sugan yihiin geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliya ee furmaha dagaalka ugu badnaan dadkii ka soo jeeday deegaanada Galgaduud iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe ayaana loo diray furmaha dagaalka iyagoo xildhibaanadoodii jeneraaladoodii fanaaniintoodii iyo qof walba oo sumcad ku dhaxlaa bulshada ay qayb ka yihiin magaalada Caleer bariga gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka waa mid kamid ah meelaha ugu muhiimsan ee la filayo in dagaaladan laga hogaamiyo iyada iyo Cadale ayaana marka koonfurta Soomaaliya la jooga noqonaya labada marin ee istaraatiijiyada gaarka leh isla markaana la filayo in dagaaladan laga hogaamiyo xogaha degdega ah ee soo dhacay ku gadaaman dagaalada goor walba halkan ee kugu soo baahi doonay muuqaalkan fogaya oo gaarsiiya saaxiibadiina